Kenya ayaa kala saxiixday heshiisyo daraasiina oo ay dawladuhu sheegeen inay muhiim u yihiin xiriirka labada dal, gaar ahaan kuwa taabanaya ammaanka, isu socodka bulshada labada dhinac, ganacsiga iyo adeegyada kale ee dawladnimada ka dhaxaysa. Heshiisyada ay gaareen Soomaaliya iyo Kenya waxaa ka mid ah kuwa taabanaya dhinaca waxbarashada. Jaamacadaha dalka Kenya ayaa markii ugu horeysay aqoonsan doona shahaadooyinka dugsiyada sare ee Soomaaliya. Tani waxay uga dhigan tahay dadka Soomaalida gaar ahaan da'yarta waxbarashada fursad muhiim ah inay gudaha waddanka Kenya ka bilowdaan heerka labaad ee waxbarashadooda mid muhiimad weyn ugu fadhiya, gaar ahaan tacliinta sare marka laga hadlayo heerkeeda koobaad. Tallaabooyinkan dhanka waxbarashada waxay u tahay horumar wanaagsan. Wasiirka waxbarashada ee Soomaaliya ayaa la saxiixday dhigiisa dalka Kenya heshiiska la xiriira dhinaca ammaanka, xuduudaha iyo isu socodka labada dal ayaa ka mid ah qodobada waaweyn ee ku jira heshiiska ay maanta kala saxiixdeen Soomaaliya iyo Kenya. Amni ahaan Soomaaliya iyo Kenya waa kuwa duruuf ahaan isku xiran kumanaan ka mid ah ciidanka militariga ee Kenya ayaa ku sugan gudaha waddanka Soomaaliya iyagoo qayb ka ah howlgalka midowga Afrika ee ADMIS. Laakiin heshiiska cusub waxa uu dhigayaa in labada dal ay iska kaashan karaan la dagaalanka argagixisada, taasoo qayb ka ah dadaal xoog leh ay dawladda federaaliga ee Soomaaliya ugu jirto wadamada gobolku inay qayb ka noqdaan howlgal guud oo dawladdu ay kula dagaalamayso kuwa nabadda iyo horumarka diitan. In xuduudaha labada dal la furo ayaa ka mid ah qodobada heshiisyada labada dal ay maanta kala saxiixdeen. Soomaaliya iyo Kenya xuduudooda oo muhiimad weyn ugu fadhida dadka deegaanada taadsan waxay u tahay arrin muhiim ah, gaar ahaan marka laga hadlayo deegaano ka mid ah kuwa xuduudaha oo dhibaatooyin waaweyn ay ka jireen. Sarooyinkii la soo dhaafay dawladda Kenya ay kordhinaysay cadaadiska ay ku hayso kontaroolidda iyo isku gudubka dhammaan adeegyada kala duwan ee labada dal ka dhaxeeya, maadaama shacabku ay labada xuduudoodba degan yihiin. Soomaalida degan dhulka Soomaaliya iyo Soomaalida degan gobolka waqooyi bari ee Kenya ee Soomaalida waxay talaabadan u tahay fursad wanaagsan marka laga hadlayo xuduudda dib loo furo. Ganacsiga waxaa la aaminsan yahay door xooggan inay ka qaadan doonto dawladda Kenyana ay muhiimad weyn iyada laftirkeeda u leedahay in xuduudda la furo oo dhinaca Soomaaliya ay wax badan ka soo galaan, kuwaas oo dhaqaale ahaan faa'iido weyn labada dhinacba ugu fadhida. Arrin kale oo muhiim oo isu socodka sare u qaadaysa waa in baasaboorka Soomaaliga uu helo dalka dalka Kenya si loo sahlo si la mid ah sida dalalka kale ee dariska ay uga helaan dalka Kenya. Soomaaliya dad badan ayaa maalin kasta ka yimaada waxaana lacag adag soo galiyaan dalka Kenya sida ay tilmaamaan warbixinaha kala duwan ee la baahiyay ee ku saabsan hanaanka dhaqaale ee dalkan Kenya. Tallaabada muhiimka waa in dadka Soomaalidu ay helaan in laga fududeeyo arrimaha dalka gaar ahaan fiisaha Kenya oo lacag badan ay ku bixiyaan. Haddii dawladda Soomaaliya ay arrintan ku guulaysato heshiiskana qayb ka dhigato oo ay ka mid ahayd muddo kala duwan waxyaabo kala duwan oo ay Soomaaliya iyo Kenya ku heshiiyeen laakiin aan fulin, waxay qayb ka noqonaysaa dadaal xoog leh oo dawladdu ay guul ka gaartay. Dhinaca gaashaandhigga sare loo qaaday iskaashiga labada dal ee dagaalka argagixisada iyo tababarada ciidamada ayaa heshiiska ka mid ah. Dhinaca ganacsiga marka laga hadlayo waxay dhammaan labada dalba isku raaceen la hirgeliyo heshiisyadii hore loo galay ee ganacsiga, iyadoo xoog la saaraya in ganacsatada Soomaalidu ay awood u yeeshaan inay fursadaha ganacsi ee yaala suuqyada Kenya ay ka faa'iideystaan. Kenya waa dalka labaad ee geeska Afrika ee muhiimad weyn ugu fadhiya wadamada bariga. Soomaaliya inkastoo ay dhawaan ku biirtay ururka wadamada bariga Afrika ay ku midaysan yihiin, haddana Kenya suuqeeda iyo heshiiska ay la galaysay ee dhinaca ganacsigu waxuu qayb lixaad la ka ciyaari karaa in Soomaalidu ay malaayiin dollar oo faa'iido hesho kana ganacsato bulsho kala dhaqan iyo kala diina. Sidoo kale dhanka Kenya waxay sheegeen heshiiskan inay u arkaan mid muhiimad weyn ugu fadhiya dhankooda iskaashiga labada dhinacna sare u qaadaya. Ka Soomaali ahaan qodobo muhiim ah ayaa heshiiska muhiimad ugu jira Soomaaliya, gaar ahaan marka laga hadlayo la dagaalanka argagixisada, waxbarashada, ganacsiga iyo xuduudda in dib loo furo oo ay ku jirto isu socodka oo ah in baasaboorka Soomaaliga loo sahlo dalka Kenya, taasoo muhiimad weyn ugu fadhida dad badan oo Soomaaliyeed maadaama lacaga badan iyo dhibaatooyin baan ay ka qabi jireen sida ay ku heli lahaayeen. Xilli hore inkastoo Soomaaliya iyo Kenya ay heshiisyo ka gaareen arrimahan, haddana sida kan uga duwanaan karo kuwii hore loo galay oo loo fuliyo ayaa labada dalba laga eegayaa. haddii meelahaas waa Afghanistan ku hadlaya afqalaad ka hadlaya meelaha laga maqlaa, marka waxa codsanayaa in wasiirka loo yeero oo golaheennana wali muu iman inamana waramin. meelahaas waa Afghanistan ku hadlaya afqalaad ka hadlaya meelaha laga maqlaa, marka waxa codsanayaa in wasiirka loo yeero oo uu ka waramo bal wuxuu intii dhowr sanadood uu joogay meesha wixii uu qabtay iyo wixii kuwii hore
wuxuun bay dee wadwadi jireenoo isagu afgariisigu aad ugu badaya horta marka ugu horeysa markaa isaga intaasaan ku dhiyo dhaafay arrimaha dibadda waa maxamed kaahi gudaha waa maxamed kaahi odaygu waa mujaahid marka ugu horeysa cilmigan mujaahidnimada aad buu u badiyaa marka ugu horeysa laakiin arrimaha gudaha wax ka mida maba yaqaano waxba xabadba kama yaqaan dalkii arrimo badan baa ku jira oo colaad leh oo dhibaato leh oo cid walba leh dhibaatadaas sool markii uu joogay isagaa geystay waa dembille isagaa soo daayay suldaamaanu geedba u kala xidhnay oo dowladihii hore kala xidheen ayuu isu keenay dagaalkaa isagaa u sabab ahaa ii yara kaadii degdeg markaa waxa weeye isagana qudhiisa waxaynu u baahan nahay shir guddoon waxaynu u baahan nahay adeer waan ku jiraa kama bixine ma lahadaad si kale u qaatay maya adeer guddoomiye waan ku jiraa waxa weeye arrimaha dibadda waxa weeye dhibaato badan bay leedahay waxa gudaha ay leedahay wasiirkaa loo yeedho golaha ka warramo isaguna golaheennana weli muu iman inamana warramin meelaha isagoo afgariisi ku hadlaya afqalaad ka hadlaya meelaha laga maqlaa markaa waxaan codsanayaa in wasiirka loo yeedho oo uu inoo ka warramo bal wuxuu intii dhowr sannadood uu joogay meesha wixii uu qabtay iyo wixii kuwii hore wuxuun bay dee wadwadi jireenoo isagu afgariisigu aad ugu badaya horta marka ugu horeysa markaa isaga intaasaan ku dhiyo dhaafay arrimaha dibadda waa maxamed kaahi gudaha waa maxamed kaahi odaygu waa mujaahid marka ugu horeysa cilmigan mujaahidnimada aad buu u badiyaa marka ugu horeysa laakiin arrimaha gudaha wax ka mida maba yaqaano waxba xabadba kama yaqaan dalkii arrimo badan baa ku jira oo colaad leh oo dhibaato leh oo cid walba leh dhibaatadaas sool markii uu joogay isagaa geystay waa dembille isagaa soo daayay suldaamaanu geedba u kala xidhnay oo dowladihii hore kala xidheen ayuu isu keenay dagaalkaa isagaa u sabab ahaa ii yara kaadii degdeg markaa waxa weeye isagana qudhiisa waxaynu u baahan nahay shir guddoon waxaynu u baahan nahay adeer waan ku jiraa kama bixine ma lahadaad si kale u qaatay maya adeer